بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo shabakada Set Technology waxaad ugu barateen muuqaalo tutorial ah. maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida aad u sameyn lahayd mobile frame casri ah. waa Google hadda ku qortid mobile being transparent waxa ku soo baxay mobile frame aad u tiro badan. markaana kuwaas doonayno waxaan doonaynaa mobile frame anaga noo gaar ah oo anaga gacanteena ku sameysana. walaal hadda daaragtin inaad samaystid waxaad u baahan tahay barnaamijka Pixel Lab. Play Store ka tag Pixel Lab qor soo degso. aniga hadda soo degsaday barnaamijka wax badan ayuu ka anfacaa. hadda aragtid design aad ayuu ku anfacaa. marka waa inaad soo degsatid markaad soo degsatid waad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid daaqada ugu horeysa waxa ku qoran new text oo aad u jeedaan daawade. markaad sidan ku soo kaco screenshot aad ka qaadaysaa. walaal hadda u jeedaa screenshot ka qaadanay. markaad ka qaadatid waxaad bedelaynaa saaska image-keena. image saas ku dhufo. markaad ku dhufatid waxaad ku dhufanaysaa YouTube timeline oo dhufo kabacdi okay iska dheh. new text hadana qoraal waxaan ku qoran u baahnin waa iska dalad gareynaa. markaas ka dalad gareyno hadana waxa aadayna option-ka afraad. waxaa doonaynaa inaad transparent ka dhigno waxa habeenayno. walaal hadda transparent ka dhigan wax ku shaqeynaa malaha. transparent ka dhigo. transparent marka sidan ugu dhigsid waxaad u baahan tahay inaad screenshot-ka qaadina had soo gashitid. waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas balaaska. waxaad ku dhufanaysaa from gallery markuu sidan ayuu ku soo kacayaa. sidan markuu ku soo kaco waad ku dhufanaysaa. walaal screenshot-ka qaadno waa kaasa ka bacdi tigta noo saar. screenshot-ka qaadno markuu sidan noogu soo galo size-kiisa ayaa yareysanaynaa. size-kiisa noo yareey walaal. waxaad la ficilsiinaysaa sawirkaaga adigoo ku aadinaya bartamaha sawirkaaga. kabacdi sidan markuu ku soo u samaysid waxaad u baahan tahay inaad color-ka ka bedeshid. hadda new text iyo waxaas u jeedaa uma baahnin waxaas. waxaad tagaysaa option-ka saddexaad ee barnaamijka. markaad tagtid waxaad ku dhufanaysaa color meesha ku qoran tahay. waad u jeedaa halkaas noogu dhufo enable nooga dhig. enable markaa noogu dhigtid waxaad ku soo baxay color-kan gaduudka ah. kabacdi tigta noo saar. markaad noo saartid sidii markaad maraysid hadda ayaa shaqada bilaabayna design-ka ah ama naqshadeynta ah. waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas balaaska ah. markaad ku dhufatid shapes ay meel ku qoran tahay noogu dhufo. markaad noogu dhufatid calaamada cadaanta ayaa noo soo baxayo. kabacdi waxaad la ficilsiinaysaa gaduudka ilaa ay gaduudka la ficilsi. markaad la ficilsiisid sida markaa ula ficilsid walaal hadda baasha inaa qurxina u baahannahay. waxaad ku dhufanaysaa radius meel ku qoran tahay ilaa ay xoogaha noo soo jeed ilaa iyo 20 camal. hadda waa u jeedaa qurux ayaa noo noqday. sidii markaad samaysid waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas saxda ah noogu dhufo. markaad ku dhufatid calaamada saxda ah sidii markaad u samayso walaal hadda waxaad aadaysaa calaamadaas. kabacdi screenshot-ka haday soo gashin uma baahnin calaamada delete-ka noogu dhufo. kabacdi isla meesha ku dhufo ka baxa. markaad halkaas maraysid waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas ku dhufanaysaa qalinka copy leh. copy markaad dhahdid wuxuu noqonayaa 2 ayuu noqonayaa. kabacdi 2 markuu noqdo waad ku aadinaysaa. markaad ku aadisid waa is dul saaraysaa. sidii markaas ku dul saartid option-ka saddexaad hadda waa noo dooran yahay. waa u jeedaa waxaad u baahan tahay color-ka aad ku dhufanaysaa enable aad ka dhigaysaa. hadda gaduudka noo dooray gaduudka dooni mayna. hadda calaamad kale nooga dhig. calaamadaas camal nooga dhig. kabacdi tigta noogu dhufo. tigta markaas sidan ugu dhufatid walaal kadib waxaad imaanaysaa relative position meel ay ku qoran tahay. waxaad u baahannahay inaad barnaamijka dhexda noogu aado walaal. hadda gees iyo wax soo noogu jira kabacdi
sidii tan noogu aadi hadda dhexda noogu aadi ujeedaa marka sidii tan noogu aadi sida hadda waxaa dooraneynaa nashqada kale hadda nashqada sano saarnaa in nashqadan kale noo door kabacdi isla meesha ku dhufo hadda relative position ku dhufo dhexda noogu aadi hadda waa ujeedaa walaal caadi isku qabsaday dhexda sidii tay ugu aaday kabacdi calaamada stick noogu dhufo walaal sidii tan markaad relative position ugu dooratid dhexda ku aadisid waxaa u baahanaa hadda labada calaamad hadda kala dhaqaajino dooni meen hadda inaan kala dhaqaajino oo kala dhaqaaqa waxaa rabnaa inaan merge ku sameeyno meeshaas ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid calaamada stick ku dhufo labadoo tig noo saar kabacdi halkaas ku dhufo okay iska dhig markaas kabacdi meesheeda ku dhufo kadib markaas sidaas ugu dhufatid walaal bacdi sidii markaa u sameysid walaal hadda waxaad u jeedaa mobile frame inuu noo sameysan yahay laakiin hadda hore kama isticmaali karno waxaa doonaynaa optionka saddexaad noo door kabacdi erase color meel ku qoran tahay raadso erase color ahna u jeedaa hadda waa kana kabacdi enable nooga dhig enable markaa sidii ugu dhigtid hadda waxaa u jeedaa inuu naga remove gareeyay backgroundkii aan u baahneen kabacdi qalinkaas noogu dhufo markaad ku dhuftid qalinka calaamadaas qalinka la raac kabacdi markaa sidii ugu raacdid calaamada saxda ku dhufo waa u jeedaa backgroundka u baahneen ayaa soo naqday kabacdi waxaad u baahan tahay inaad ka remove gareysid wixii wasaq ah waxaad ku dhufanaysaa tolerance meel ku qoran tahay ilaa ay waxoogaa iska soo jeed wasaqda ay u ka remove gareynaya wuxuu ku soo baxaa mid casri ayaa ku soo baxaa marka hadda walaal waxaa u jeedaa inuu noo sameyso mobile frame-ka u baahneen kabacdi tigtaas ku dhufo walaal waxaa u jeedaa hadda rabtid waxaad ku dareysaa waxyaabo kale aad u baahan tahay effect kale iskaga sii daro anaga hadda halas ay u baahannahay oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawatay fadlan hadda ku cusub tahay shabakada Set Technology waxaan si xushmad kaaga codsanaa inaad subscribe saartid notification kana furtid si aad ula socotid muuqaaladeena insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.